Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada daawadayaal mar kale kulan kale oo xiiso leh. Waa anigoo ah Cali Xirsi Kaarshe oo ku magac dheer Cali Kabayare oo caaway raba halkan inuu idinkula wadaago ama idiin soo gudbiyo laba laba maaso oo gaagaaban oo aan kaga hadlayo arrimaha Soomaaliya iyo siyaasadda iyo maxaa la yiraahdaa wadaniyadda iyo qaabka ay hadda wax u socdaan. Inta badan suugaantayda ama gabayadayda waxaan uga hadlaa siyaasadda, waaqica markaa taagan, arrimaha bulshada, dhaqaalaha, ciidamada iyo dhammaan arrimaha Soomaaliya quseeya oo dhan. Waxaanan inta badan jeclaystaa inaan kusoo gudbiyo qaab suugaaneed fikirkayga aniga sida wax u socdaan. Mararna waan ka hadlaa, mararna inta badan waxaan kusoo gudbiyaa suugaan ahaan ayaan kusoo gudbiyaa. Marka caawa waxaan idila jeclaystay gabay aan hadda ka hor tiriyey 2017 ayaan tiriyey 30 Juulaay ma 30 Juun bisha 6aad 2017 ayaan tiriyey. Waxaa gabayga magaciisa la yiraahdaa Maquuste. Wuxuu ku munaasabadii 1 Luulyo ayay ku aadanayd. Laakiin munaasabad kasta wuu quseeyaa gabaygan maadaama uu yahay gabay gocasho ah oo mar walba inta badan munaasabadaha Soomaalida markii la dhigo laga sheekeynayo 1 Luulyo, 15 May, 26 Juun, waxyaalahaas oo idil dadku waxay dib u xasuustaan halgamayaashii iyo maxaa la yiraahdaa iyo Soomaalinimadii iyo midnimadii la soo maray iyo wixii hore u dhacay. Laakiin marka hadda aynu taagannahay eegno dadka ka sheekeynaya qudhooda laftigooda iyo kuwa dhegeysanayaba waxay u tahay wax un iska maaragtay iska xus iyo munaasabad un la xusay iska dhegeysasho mooyaane wadaniyad iyo kheyrayn iyo waxay ka qaadanayaan midnaba ma jirto. oo arrintaas dib u xusuusashadeeda wax macnaha weyn ma soo kordhiso. Soomaalida waa un la iska jadwa iska qoran weeyo oo la iska xuso. Marka aniga arrintaas waa ay dhibtay runaantii. Waxaan jeclahay mar walba in qarankaygu xoog yeesho, waxaan jeclahay in wadaniyaddu ay xoogaysato, waxaan jeclahay dalkaygu xorriyadiisa inaan mar aan ku naaloono oo aan xorriyadda macnaheeda aan dhadhamino oo amni ku helno oo dowladnimo ku helno oo dhaqaale ku helno waxbarasho ku helno oo aan ku helno dal iyo dad aan anagu leenahay oo ku istareexno oo si nabad iyo amni ugu noolaado. Marka gabayga macnihiisu waxa la yiraahdaa Maquuste, qofka wadaniyadda raadinaya ee dalka raadinaya ee dowladnimada raadinaya ee qarannimada raadinaya ee aan haddana u jeedin wax macna daraa wuxuu dib u xasuustaa oo uu dib uga macnaha mar walba maskaxdiisa kusoo noqnoqota halyeeyadii hore, hebelow hebel, Cabdullaahi Ciise, Allah u naxariisto, Aadan Cabdulle, Allah u naxariisto, Jeneraal Daawud, Ilaahay u naxariisto, maxaa la yiraahdaa isha Cali Jimcaale, Allah u naxariisto, Xaaji Faarax, Allah u naxariisto, raggii SYL aasaasay, SYC aasaasay, Dheere Xaaji Dheere, Allah u naxariisto, Ismaan Geediraag, Allah u naxariisto, Yaasiin saas Allah u naxariisto. Dadkaas unbuu dib u soo gocdaa. Laakiin waxba ma u tarayso gocasho, maxaa yeelay dad la jaanqaadaya oo arrintaas la xoojinaya oo wadaniyaddaas ay la dareemaya ayaa yar. Marka gabayga magaciisa waxa la yiraahdaa Maquuste. Waxa uuna ku bilaabanayaa sidan, mid kalena dib ayaan idinkaga raacin doonaa insha Allah tacaala. Laakiin kan gaaban ayaan idiin soo horgudbinayaa marka hore. Wuxuuna ku bilaabanayaa sida tan. Gabayga magaciisa waa Maquuste. waxaana uu leeyahay: ninkii qaran burburay qiil u daya keli qalfoofowye qiso iyo qoraalladii horuu qiimo geliyaaye nafta wuxuu ku quushaa mar baa qaadir soo celina. markuu qolada nool uu arko oo qiil u bixin waayo kama quusto qoom waa hore duul qabuur galaye nafta wuxuu ku quushaa mar baa qaadir soo celina. waxaa qadafyadeennii hore aanu qiran weynay weli baan qabyaaladina dayn oo qadarinaaye isma qabato iyo waxa aynu nahay
quud xun jeceshiiye nafta waxaan ku quusashaa mar baa qaadir soo celina. waxa qoomamada iigu wacan iyo ciilka aan qababa sida aan u wada qaafilnahay iyo qaybta nala saaray khiyaanada naloo dhigahayiyo qaabka nolosheenna qaaradaha nagu xeeran ee na kala qaatay qarniyaal horay noo dhigeen quusta aan nahaye annaguna bartiinala ku qalay ayaan qayda dheer nahaye allahayow waxaan qoonsadiyo qaladka may eegto. qaalmaha gobaad iyo hashii qaaliga ahayd qarniyaasha aan dhaqan jiree qaadir nagu deeqay qotadiyo tigree baa u rara carab qaliijkaasi qorraxdoo dharaartii cad bay qaadan arigiiye qararkii berbere yuu ka raraa carab qamiis weyne sida uu qaniimo u helaan qiira dhugataaye qisas kalena waan kuugu darin waana qarinayne hadday qolo isqaban weyso oo ay qaladka joogtayso qalbigii haddii laga masaxo oo quus la celin waayo shaki iyo qanaas iyo haddii qaaf la kala saaro qayrkood waxay uga haraan xumahay qooshteen isma qabato waxay qaylisaa goor la qaybsadaye quwad iyo mar uusan lahayn qiimo hadalkoodu dibbay ugaga qoomayn waxay qalad aruursheen dibbay ugaga qoomayn waxay qalad abuureen. Soomaalay isqabo maantay waa la isqabsanayaaye haddii kale waxaa lagugu qorin qaararkii tagay. Soomaalay isqabo maantay waa la isqabsanayaaye haddii kale waxaa lagugu qorin qaararkii tagay. gabay macnihiisu waxa weeyaan nin keligiis raba inuu qaran dhiso mar walba wuxuu wax taariikh hore iyo qisas hore u dhacay iyo dad dhintay iyo ayuu mar walba xasuustaayo dib u soo baaraayo nafta ku maaweeliya. marka markuu qolada nool ee hadda joogta markuu fahmi waayo markuu qolada nool uu arko oo qiil u bixi waayo kama quusta qoom waa horiyo duul qabuur galay dad hore u dhintay markuu dadkan arko oo la yaabo ayuu dad hore u dhintay soo xasuustaayo dib u eegaa markaasuu ku wareeraa markaasuu dib haddana taariikhda u baaraa markaasuu waxaas isku maaweeliyaa. kaas waa macnaha ii sheeg gabayga ujeedkiisu intaas weeyaan oo gaaban. waxaan idinkugu darahayaa mid yar oo Soomaalida dhibaatada haysata madaxdeeda oo hadda madaxweynaha jooga ka mid yahay iyo golihiisa wasiirada iyo dhammaan dadka hadda xilka haya iyo qof kastoo xilka yimaada uu ka mid yahay. waxa weeyaan markuu xilka qabto oo la doorto waaba dadkaba lama tashanayo cidna waxba ma weydiinayo talana isagu waxba kuma keenayo ilaa dadku waddanku wada tashi ayaa lagu wadaa dal waa la wada leeyahay dowladna waa la wada maamulaa waana la wada manaafacaadsadaa. haddii marka adigu aad tiraa keliya anaa talinahaya taladaaduna ay saxsanaan weyso haddii lagu yidhaha ka joog oo aad diidid haddii talo lagu siiyo oo aad diidid dhibaato ayay noqonaysaa. kana gabaygaana waxaa la yidhaahaa ibtilo ma ahan haddii madaxweynihii dalka ugu sarreeyey uusan talo qaadanayn taladiina toosinayn. ibtilo sow ma ahan haddii qaladkii uu shalay uu sheegahay uu isagu samaynayo. ibtilo sow ma ahan wixii shalay lagu doortay ee federaalka ahaa hadduu diidan yahay haddana iskaga tag haddii la yidhahdo uusan ka tegaynin oo federaalkiina uu rabo inuu ku joogo xukunkii baabi'inaya kuna dhaqmaynin. ibtilo sow ma ahan inuu ballan qaaday inuu al-shabaab la dirirayo laakiin ay isku dhex milmeen uusan la diririn. ibtilo sow ma ahan inuu yidhaahdo Etoobiya dalka anaa ka xoreynaya Kenya waa cadow oo haddana uu saaxiib u noqdo oo xabadka ku qaato oo uu bishii ama sanadkii 100 jeer 10 jeer 20 jeer
11 jeer 30 jeer maalin walba saa ugu sii socdo soo dhibaato maaha. kana waxaa la yidhaahdaa sow ibtila maaha. waa gabay siyaasadaysan dabcan siyaasadda xaalka markaa jira ayuu ka hadlaya, cidna cayn maayo, cidna aflagaadayn maayo, laakiin waaqaca jira ayuu ku soo koobayaa si suugaanaysan oo edabaysan. wuxuu yidhi ninkii qaranka lagu aaminee aagi garan waayey, ninkii qaranka lagu aaminee aagi garan waayey, ummaddii isaga dooratee rag uga roonaatay meeshay ka sugayeen inuu omaska dhaafsiiyo, dadkii kale irdhoobana u tago oo maslaxo aado, haddii uu iyaga uun isku diro sow ibtila maaha. ardaagyada dadkan lagu xiray ee ooda lagu awday, ee qolaba meel goosatee lays agmari waayey, isagoon cidina uga sarrayn aan alla ahaynba, 4 sanana loo soo idmaday, amarna loo siiyey, ilinkaba haddii uusan dhaafahayn sow ibtila ma aha. alalaase dumar iyo carruur oday la soo jiidiye, arfarmaajo ii geeye iyo lays abaabule, iyagoon ku garanaynin bay kuu ortumayeene, awr qooqan oo kale haddaad ubadyadii laysay, ama ari waraaba u dhacay ama sidii ari waraaba u dhacay aad mici ku aafayso, asaan aayar lagu oran karayn sow ibtila ma aha. alalaase dumar iyo carruur oday la soo jiidiye, afarmaajo ii geeye iyo lays abaabule, iyagoon ku garanaynin bay kuu ortumayeene, awr qooqan oo kale haddaad ubadyadii laysay, ama ari waraaba u dhacay oo kale mici ku aafaysay, ama ari waraaba u dhacoo kale aad mici ku aafaysay, asaan aayar lagu oran karayn sow ibtila maaha. Itoobiya anaa aad u neceb oo aamin may lahaa, anigaa guray iyo ka daran odayadiinniiya, armiga anaa qorahayo soo abaabuline, artillery anaa soo iibin iyo aakayaal badane, al-shabaab haddaan aado way kala ordayaane, arladaba ma sii joogayaan 2 ayaamoode, haddii aad iswada aaminteen sow ibtila maaha. itoobiyadii aad tiri shalay waa necbahay, waaba abiy axmed walaalkiis baa noqotay. al-shabaabka aad tiri haddaan 2 sana dalka uga xoreynaya, 2 ayaamood 2 sana dalka uga xoreynaya, iyo adinkii wada shaqayn baabay ka dhaxaysa, sow ibtila ma aha. sow ibtila maaha. Itoobiya anaa aad u neceb oo aamin may lahaa, anigaa guray iyo ka daran odayadiinniiya, armiga anaa qorahayo soo abaabulina, artillery anaa iibin iyo aakayaal badane, al-shabaab haddaan aado way kala ordayaane, arladaba ma sii joogayaan 2 ayaamoode, haddii aad iswada aaminteen sow ibtila ma aha. aadanaha eebbaa sharfoo uumay waa hore, adeeceen malaa'iguhu oo raaca amarkii, ibliis baa istaagoo inkiray eebbe hadalkii, asna ololkii naareed ayaa loo abaandhigay, ii daaya waatuu ku yidhi hayga aadina in yar dabadi adas waadigii geeyey oo raray. ammaanada haddaan la xafidin sow ibtila maaha. waa qalbi dhagax. biniaadamka ilaahay baa karaameeyey, qofka biniaadamka waa inta ilaahay abuuro wax ugu karaamada laqad karamnaa bani aadam. ilaahay markuu nebi aadan sameeyey malaa'igtii dhan salaama yidhi, ibliis baa diiday. ibliis markuu diidana naartaa loo dhaadhiciyay, naacadda allah ku dhacday, jannada ka baxna waa tii la yidhi. aadanaha eebbaa sharfoo uumay waa hore, ee adeeceen malaa'iguhu oo raaca amarkiiya, ibliis baa istaagoo inkiray eebbe hadalkiiya, asna ololkii naareed ayaa loo abaal dhigay, ii daaya waatuuna yidhi hayga aadina in yar dabadi adas waadigii geeyey oo raray. ammaanada haddaan la xafidayn sow ibtila ma aha. qoraahdaad tidhaahdaba hadday eel xun dhalinayso, islaamkiiyo gaaladii haddaad eed ka tabanayso, unisomna aad maagtay oo kaa ammaan helinin, ilaalana
ayagu kuu yihiin sow ibtila maaha. haddaad meel walba qolo gaaladii la dirirtay oo unisom la dirirtay oo amisom la dirirtay oo haddana iyaga ku ilaalinayaan sow ibtila maaha. bal haddaad u dirirayso maa ilaaladaada iga qaati tiraahid oo adigu is ilaalisi oo dalkaagii adigu dadkaaga maamulati. yaab la aragi. oraahdaa tirahdaba hadday eel xun dhalinayso islaamka iyo gaalada, haddaad eed ka tabanayso unisomna aad maagtay oo kaa ammaan helinin ilaalana ayagu kuu yihiin sow ibtila maaha. arrimaha dhaqaalaha markii lagugu soo oogay 42 la dhacay eberkay sheegteen. arrimaha dhaqaalaha markii lagugu soo oogay 42 la dhacay eber ku sheegteen. arrintaa raggii uba kacee eedda soo bixiyey haddii irin xaqoodii noqday sow ibtila maaha. 42 milyan baa dhaqaalihii markii lasoo saaray xeraaryihii waa tii xilka laga qaaday, waa tii qaarka guddiga la kala diray baarlamaanka, waa tii maxaa la yidhahdaa ay sheegeen qaar la xirxiray oo dadkii kale caadiga ah kuwa eed lagu soo jeediyey, waa tii la inkirooday. waxba kama jiraan 42 milyan waxa saas ma ahayn, saas bay ahayd. Turkiya taala intaas. arrimaha dhaqaalaha markii lagugu soo oogay 42 la dhacay eber ku sheegteen. arrintaa raggii uba kacee eedda soo bixiyey haddii irin xaqoodii noqday sow ibtila maaha. meeshii amalmarin la siin lahaa oo dhiira waa mahadsantii qaranka u shaqayseen waaba la kala ceyriyey. gobollada amuuraha ka jira waan ogsoonahay is-afgaradkii wuu joogsado kala irdhowdeena sidii ararsankoo kale in badan kugu agdaaleene ujeedkaaga garan waaye iyo aragtidaadiiye cid ku aragta oo yaabin waa eel inoo haraya haddii aan caqliga laga shaqayn sow ibtila maaha. gobolladiina waa kala tagay maamul goboladii, miduu ku duulo oo qabsado, miduu maamulkeedu baabi'iyey sida galmudug, mid haddii la ku reeyay gareen dusha laga saara sida koonfur galbeed axmed madoobe lagu duugay, maxaa la yidhahdaa puntland oo ayadana maaragtay ii sheeg ay siyaasaddii weli laysku haysto. qancin ma leh, ma jirto. ma jirto. gobollada amuuraha ka jira waan ogsoonahay is-afgaradkii wuu joogsado kala irdhowdeene sidii arasankoo kale in badan kugu agdaaleene ujeedkaaga garan waaye iyo aragtidaadii iyo cid ku aragta oon yaabin waa eel inoo haraya haddii aan caqliga laga shaqayn sow ibtila maaha. haddaad doonto inan gabara, haddaad doonto inan sharaf leh oo aabbaheed bixiyo, adigoon aroos wacan la gelin oo geysan aqalkaaga, aragtida horraanteed haddaad eed ka bixi weyso, ehelkii haddaad kala dirto kala afuufayso, asraar haddaad kiciso oo bala abuurayso, asaad diiddo inantii inay aadda gurigeeda, misna adigu aad jeceshahoo ku indhabeelayso oo aad u ooyeyso oo aad u dhimanayso, in ku fahamta haddii aysan jirin sow ibtila maaha. waa federaalkii. gabar baa beed ka doontay, waa lagu siiyey, adigoo la aqalgelin baa gabadhii caayid ku bilowday, ehelkii oo dhan baad dacaysay, dadkii waa isku dirtay. war gabadhaan iska fur haddaad rabin, haddii lagu yirina ma furaysid, waad ooynaysaa, waan jeclahay, waan rabaa, waan doonayaa baad leedahay. gabadhiina haddii ilaahay kuu reeyahay aflagaadada halkaa ula soo taagan tahay adoon weliba aqal geysanoo gurigaagiiba aysa tegin. waa federaalka. maxaa cabdullaahi farmaajo federaalkii waa lagu doortay, mana rabiyo waana rabyaa. federaalka wuxuu ku leeyahay maxaa la yidhahdaa ishig dalka uma wanaagsana, annagu federaal waa ka soo horjeednaa, haddana isagii baa lagu doortay oo constitutionka sharcigu ku joogo waa Somali federal government. yaab iyo amakaag la aragi. haddaad doonto inan sharaf leh oo aabbaheed bixiyo, adigoon aroos waxaan la gelin oo geysan aqalkaaga, aragtida horraanteed haddaad eed ka bixi weyso, ehelkii haddaad kala dirto kala afuufayso, asraar haddaad kiciso oo bala abuurayso, asaad diiddo inantii inay aadda gurigeeda, misna adigu aad jeceshahoo ku indhabeelayso oo aad u ooyeyso oo aad u dhimanayso, in ku fahanta haddii aysan jirin sow ibtila maaha. lagu garan waa waxba arartu yay noqon midaan iga ilaalayni
hadday iga maqlayaan in badan waa anigii iriya. Farmaajo maalintii ugu horreysay ayaan u digay oo garaar gabay u tiriyey, waana loo geeyaan xaajiga farmaajo xaji taladu iyo dhicin baa la yidhaahdaa. xaajiga farmaajo xaji qaranku iyo dhicin youtube-ka ku jirta waa ka arki kartaan. waxba arartuyay noqon mid aan iga ilaanayna hadday iga maqlayaan in badan waa anigii iriya erey suuban lama diido iyo alif qur-aankiiyo islaamkaba waxaa lagu yaqaan inay istoodshaane unsur iyo aquuka ka qabo qalad hadduu aado unsur oo aquuga walaalkaa wey. unsur oo aquuga ka qabo qalad hadduu aado adeer joog ku dhaha ruux hadduu aabi soo wada ee suubanaha sala allahu calayhi wasalam. suubanaha inoo sheegayoo aayad baa tiriye haddaan aragti laysdhaafsanayn sow ibtila maaha. qaladka haddaan lagaa celin karin sow ibtila maaha. haddaan qaladkaba lagaa celin karin oo islaamku uuna faray unsur aqaaka daaliman ow madluuman, walaalkaa u sheeg qaladkiisa, hadduu gardarada ka celi, haddii laga gardariyana u hiili. haddaama lagula hadli karin oo mucaaradkii ay qarandumis lagu magacaabayo oo wariyaashii la xirayo oo saxaafaddii la caburinayo oo qoladii iga aragti duwan laleeyahay waa jaajuusiin iyo dalal shisheeye u shaqeeyaan, sow ibtila maahan. dowladii waa tala wadaag, qarankuna waa iswada kaashadaa. baarlamaanku qayb buu leeyahay, oo golaha fulintu qayb bay leedahay, oo cadaaladdu qayb bay leedahay, oo maxaa la yidhahdaa ishig shacabku qayb bay leeyihin, oo mucaaradku qayb bay leeyihin, oo muxaafadku qayb bay leeyihin. haddaama cidiba in lagu heeso maahana cid kaleba aysan tala kugu darsan karin, sow ibtila ma aha. waxba arartuyay noqon mid aan iga ilaanayna hadday iga maqlayaan in badan waa anigii iriya erey suuban lama diido iyo alif qur-aankiiyo islaamkaba waxaa lagu yaqaan inay istoodshaane unsur oo aquuga ka qabo qalad hadduu aado adeer joog ku dhaha ruux hadduu aabi soo wada ee suubanaha inoo sheegayoo aayad baa tiriye haddaan aragti laysdhaafsanayn sow ibtila maaha. sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. intaas ayaan kusoo joojinayaa caawi labadaas gabay ee gaagaaban aan la wareejiyey. labaduba siyaasadaha ayay ka shaqaynayaan, ka sheekeynayaan, waana aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawashada iyo sida wanaagsan aad noola socoteen. fadlan sii share garee, subscribe dheh haddii aad channelkan ka heshay, commentiskana hoos inoogu soo qor. waa anigoo cali xirsiya oo idin leh kulanti dambe oo xiisa leh. ramadaan kariim.